madaxweynaha xaqa weydino mooy xaq baad ku leed kuma siinin Kenyatta-gii hore kuma siinin waliba wuu ku gumaado wuu ku baabiye mooy inta aan ku hadla waa inta afgambiga General Maxamuud oo asoo dhagta lagu dhufan rabo iyo ka badbaadiyay haddii afgambiga lagu badbaadinin meesha noodiisa baan joogay Nairobi maana gaari lahayn xaqa aan ku leed muxuu noo siin waay. One thing Honorable Duale should measure up to the person he is, being a leader, experienced, or rather seasoned politician. It appears he has reached menopausal in politics. He has come so low fighting people. Everybody. Garissa is disenfranchised entirely. That he cannot hold a meeting in his own home county. Any meaningful meeting in Garissa. He went to Wajir, held 2 meetings, trying to incite communities against each other, without regard to the biting drought. He boasts of his wealth, over 3,000, 2,000 camels. Actually, camels that were bought entirely. They did not reproduce each other. He talked of choppers that will be hitting each other in the skies during elections. A show of opulence and might. People's power counts, not Duale's wealth and power. And President William Ruto is one I have voted and will continue to vote. He wants people's support. He doesn't want people to showcase that kind of wealth and arrogance and liability. marka sheekadan yaa raqiiskeena loo keenay leeyahay madaxweynaha xaq baan ku leenahay Kenyatta xaq baan ku leenahay munasi mooy xaq baan ku leenahay munasi soo kii waa garan oo gumaado ma gaar isku baa la gumaado soo ma marka mariso kina la gumaado ma soo xukumaana lahayn ina Kenyatta inta Soomaaliya uu dilay waqtigiisa asaga iyo Matiangi Najwa waxay madaxda way cabsoon Matiangi iyo Kino ciyaar Kenyatta ina Kenyatta nin aniga dhawa maro ana majority leader waa hada telefoon uu soo dira inta qof oo Soomaaliya uu dilay extrajudicial killing 2,000 bay gaaraan 3,000 dila gaareen soo xukumaana lahayn William Ruto markuu wiilkeena uu ka dhigay DCI amiin soo qabiilka kama dhigin agu Nuurdin Sina soo ninka ma siin karin markii uu horeysay kija 4 permanent secretary yaa joogan ajuuraan abadkii muu helin permanent secretary maanta Ahmed baa permanent secretary haqa Dr. Hassan haqa soo kumaan lahayn mooy soo kumaan lahayn Uhuru ajuuraan generalki oo horeeyay ani Aden barmaka wasiir difaaca noqday yansi هذا صفي على Soomaali صفي على رسول الله